ilaah baa horta mahad iska leh oo noo suurtageliya caawa inaan halkan isugu imaano. Waxaan u mahad celinayaa guddiga gurmadka oo runtii juhdi weyn geliyey sidii dadkaas walaalaheena ah gargaar degdeg ah loola gaari lahaa. Waxaan u mahad celinayaa rugta ganacsiga oo iyagana runtii isxilqaan badan sameeyey oo dhaqaale aad u fara badan aruuriyey. aad iyo aad baan runtii kaga mahad celinayaa culimada oo runtii dadka gaarsiisay oo runtii arrintan meel walba gaartay oo loo wada istaagay. Puntland dadka ganacsatada ah oo iyagana sida degdeg ah ula soo gaaray dadka waalahooda wixii taakuleena aad iyo aad iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan runtii gargaarkaas sida wanaagsan oo walaaltinimada leh ay qayb libaax leh ama qayb weyn ay uga qaateen ay ugu dambeysay wafdiga nooga yimid maxaa la yiraahdaa Nairobi uu hogaaminayo Sheekh Umul oo caawa na siiyey warbixinta dhaqaalaha ay wadaan oo ay rabaan bari inay gaarsiiyaan. xaqiiqatan tan waxay caddeynaysaa sida loo gurmaday oo qof walba Soomaali ah meel kasta uu joogo hadday yihiin qurbaha iyo hadday yihiin gudahaba ay isu xilqaameen sidii dadkaasi dhibka ku dhacay oo runtii ka barakacay guryahoodii iyo noloshooda caadiga ahayd. markaan tagnay jid caadi ah oo la maro yaa biyaha waxay ku istaagayaan sinta dadka waa ku dhex socdaan gaar dameeryaa ku dhex socda waa la adeeganayaa dadka Soomaalidu oo dad aan caadi ahayn waay. marka annaga naftiina waa tijaabinay inaan fiirino si biyaha loogu dhex socon karo iyo runtii dadkaasi waxay marayaan aan la qaybsano xanuunkooda. waxaan waa qadara weeye saan hore ugu sheegnay laakiin muhiimadda waxay tahay markay dhacdo musiibadan oo kale si aan kulligeen aan ugu istaagno oo aan garab soo siino oo dhibaatada aan wada qaybsano runtii waxaan caadi ahayn. marka musiibooyinku waa badan yihiin ilaahay aan barino inaysan nagu soo noqon aan xoojino sidii dadka Soomaaliyeed ay gacan isu siin lahaayeen haddii sidaan oo kale ay wax noqdaan. marka Sheekh Umul runtii waa kaaga mahad celinayaa inaad adiga iyo wafdigaaga aad soo marteen dhulkaas fog birina ilaahay hadin ku badbaadiyo. taas waxay muujinaysaa walaaltinimada iyo waxay Soomaali isu tahay iyo inaan isku fiirsan dhibka. haddana qurbihii naftigoodii waxaa ka socda hawlo badan oo la rabo dadkaasi in gacan la siiyo. marka iyo dowlad ahaan inaanu qorshe ka diyaarino oo cid alla ciddii gacan naga siin karta dowladaha runtii saaxiibkaan la nahay inay sidii loo sameyn lahaa qorshe dheer. marka dadaalkeena kolley dee bini aadan inaan xoojino annagoo iskaashanayna dowladdii iyo shacabkii iyo maxaan ku rahdaa civil society-gii iyo guud ahaan dadka qurbaha jooga. ilaahayna aan tawakalano ilaahayna aan barino in dhibkaan oo kale maxaan ku rahdaa aan ka duceysano inaysan nagu soo noqon. marka qof kasta oo runtii ka qayb galay iyo dowladaha shisheeye naftigooda saaxiibada aan nahay oo ka qayb galay oo kaalmada macaawinada ah la soo gaaray dadkeena shacabka iyagana aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. marka haddee waa mahadsantihiin kulligiin.